daawadayaal kadib markii coronavirus uu ka dilaacay waddankan ingiriiska waxaa la xidhay meel kasta meelihii laysugu iman jiray oo dhan noocay u tahayba masaajidada ayaa ka mid ah iyo malcaamadaha. haddaba arrintaasi sidee ayay u saamaysay dadka muslimiinta ee ku dhaqan waddankan ingiriiska? waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay fadiilatu sheekh maxamed cali mawliid oo ah imaamka iyo khadiibka masjidka weyn ee alfurqaan ee magaalada manchester. sheekh, marka hore waan ku salaamay, kusoo dhawow telefishinka Ariel. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهندس ياسين آدي أدبا كو سلامية أديك إيا دمان حانكو داوضياشا ونكسن إيا دقيستياشا تيفيغا أريال ملك استيقتان بو إيا سلامية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكو سو دوادي. sheekh waxaad ka warantaa waxaad kamid tahay culimada waaweyn ee waddankan ingiriiska bal waxbaa dhacay coronavirus waxa la yidhahdaa baa caalamkii ku habsaday bal arrintaa ka waran adigu saad u aragtaa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما فيه خير في الدنيا والآخرة. مركه هروان وذا سلامتي دمان وحا وأركار مهانتي أرنتن كورونا فيروس كل وحي إلهي سبحانه وتعالى وقدري إلهي سبحانه وتعالى وحو قري إني دعان أدوك من آذنكو waxyaabo kala duwan ama siyaabo kala duwan ha wada tafsiireen. annagu haddaynu dad muslina aynu nahay waxaynu aaminsannahay in ilaahay subxaanahu watacaala inuu wax walba uu qadaro, wax kastoo adduunka ka dhacayana ay yihiin wax ku dhacaya ilaahay subxaanahu watacaala maxaan ku idhaahdaa amarkiisa, siduu ilaahay subxana watacaala qur-aanka meelo badan uu ku sheegay, sidoo kale sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay inoo sheegayso. marka kolley dhibaato aad iyo aad u weyn baa dhacday, meel walbana taabatay dalalka islaamka iyo dalalka aan muslimiinta waxaan ku idhahdaa lagaga badan yahayba. markii hore arrintan ay bilaamatay kolley waxaa loo arkayay wax gaar u ah waddanka china oo kale, laakiin markii dambe waxaa la arkay arrintan inay xaggaa ku koobnayn oo adduunka oo dhan ay ku baahday. marka sidaa daraaddeed run ahaantii iminka ciday ka qarsoon tahay ma laha coronavirus iyo dhibka uu leeyahay. kolley su-aalahaas waxaa laga yaabaa inaad hadhow dee dib iga weydiisid, laakiin iminka ilaahay subxaanahu watacaala kolley arrin uu keenay oo imtixaan dee dadka lagu imtixaamayo, dadka fursad lagu siinayo inay ilaahay subxaana watacaala ku gartaan oo ilaahay subxana watacaala xaggiisa usoo noqdaan ayaynu aaminsannahay haddaynu nahay dad muslimiina. sheekh, adigu kulley waxaad tahay imaamka iyo khadiibka masjid weyn oo ku yaala magaalada manchester. bal ka waran ereyada aad degan tihiin iyo guud ahaanba waddanka ingiriiska saameynta uu ku yeeshay dadka muslimiinta iyo khaasatan kuwa soomaaliyeed. run ahaantii su-aashaas waa su-aal aada muhiima weeye. haddaanu nahay dadka muslimiinta ah ee degan dhulkan caradan loo yaqaano ama dhulka loo yaqaano ingiriiska ama UK United Kingdom, waxaa coronavirus kolley waxa weeye wax dadka uu aada iyo aadka u saameeyey baynu ka mid nahay, ama waxa loo yaqaano BAME da dadkan ethnic minority-ga loo yaqaano annaguna aynu ka mid nahay dadka aan caddaanka aan ahayn ee waddankan degan. marka la eego dadka xanuunkan uu aada iyo aadka u taabtay, ama marka la eego dadka ku dhintay, ama marka la eego dhakhaatiirta ilaa iminka u dhimatay, waxa ay u badan yihiin ama la oran karaya waxa ay ku kooban yihiin marka la eego dhakhaatiirta ilaa waxaa la tilmaamayaa inay asalkooda kasoo jeeda cara aan yurub ahayn inay asalkooda ay kasoo jeedeen. marka aada iyo aad bay u taabatay. sidoo kale waxaa la tilmaamayaa dadka marka la eego iminka caafimaadka maxaan ku rahda ama waxa loo yaqaano intensive careka u baahday, dhakhaatiirta u baahday aada iyo aadka maxaan ku idhahdaa dhakhaatiirta iyo maxaan ku idhahdaa caafimaadkaba u baahnaa inay dadkaasi badankoodu ama 3 meelood oo meel inay yihiin dadkan maxaan ku idhahdaa ama asalkooda ama muslim ha noqdeen ama dadka madow ha kasoo jeedeen. marka si gaara baad inoo saameeyay. haddaan hoos ugu soo daadego dadka soomaaliyeed run ahaantii waxaa laftigooda la tilmaamayaa dad fara badan inay ku xanuunsadeen oo laakiin alxamdulilah aanay dhakhaatiir ama hosbitaalka aanay u baahan. haddii aan kasii aan hoos ugu soo daadego magaalada Manchester,
adigu kolley dad xanuunsaday waa jiraan maxaan ku idhahdaa xanuunkan coronavirus ama waxa lamid ah dareemay xanuunadaasna badanka dadka waxaa laga yaabaa guryaha inay maxaan ku idhahdaa aanay u baahan in laga qaado oo hosbitaalada la geeyo intaanu ka warhayno dadka soomaalida ah hal qof oo run ahaantii da ahaan qof weyn ahaa oo odayaasha magaalada kamid ahaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qadaray in xanuunkaa la yidhi sabab ayuu ahaa inuu dhintay isagana waxa weye magaaladan ku aasnay oo maxaan ku irahda anagoo raacayna guidelineska iyo qaabka dawladdu ay u codsatay dadka xanuunada noocaas oo kale u dhintay in loo diyaar gareeyo marka janaasadooda la diyaarinayo. aada baad mahadsantahay sheekh. iyada oo dee coroonuhu sidaad sheegtay aanu meel la dhaafin oo cid walba uu saameeyey diinta islaamku waxa weeye waxay ahayd aada diinta maaragtay u faafaysay waddankan ingiriiska masaajidada iyo malcaamadaha iyo dacwada dee aada bay u fara badnaayeen dee waa la xidhay intaba bal ka warran arrintaas maxaa qolyahini dacwadda diinta islaamka fidinayay bal ka warran halkee bay idinla maraysa arrintaas? maasha allah, su-aal aada iyo aada muhiima, jazaaka allah khayr. su-aashaasi mahaantii marka la eego goobihii ilaahay subxaana watacaala loogu cibaadeysanayey oo masaajidadu ay number one ka yihiin maxaan ku idhaahdaa sidaad sheegtay waa la xiray. dawladdu masaajidada waddankan ku yaala intaanay dawladdu qaraarka gaarin in la wada xiro masaajidada ayaa masaajido fara badani ay bilaabeen inay ayagu go-aankaas si gaara ay u qaataan iyaga oo doonaya inay ka qayb qaataan in hoos loo dhigo fidista uu xanuunkani uu filayo isagoo dadka muslimiinta ayagoo ku talagalay inay dawladdan iyo dadka waddankan degan ay tusaan inay yihiin dad shacabka kamid ah danna kale shacabkan waddankan degan gaaladiisa iyo muslimiintiisaba ama dadka muslimiinta iyo dadkan muslimiintaba aan ahayn. marka muslimiintu ayagaa intay gaar u shireen meelo badan oo kamid ah ama magaalo walba si gaara raggeeda odayaasha ah iyo culimadeeda ay wada kulmeen ayaa dawladdu intaanay soo saarin qaraarka in la wada xiro meelaha cibaadada ayay masaajidadu qaar badan oo kamid a ay go-aankaa gaareen inay sii xiraan ayagoo doonaya shacabka iyo dadka muslimiinta ah iyo dadka caamka ah ee waddanka deganba in laga badbaadiyo xanuunkan khatarta ah. marka sidaa daraaddeed waxa weeye horey u qaateen masaajidadu inay arrintaa ay fuliyaan. markii dawladdu ay soo saartay in la wada xiro masaajidadana intii harsanayd masaajidadu ayaguna waa ay xidheen. marka waxaa jira iminka murano fara badan oo ka jira masaajidada iminka wadamo muslimka ah oo kale dee laleeya la xidi maayo oo arrin sidaa odhanaysa oo dad badan ay ku kala qaybsan yihiin. arrintan ba ka warran masaajidada iyo goobaha cibaadada la xido. halkan ingiriiska laftigiisa ama dhulkan aanu joogno halkan fikrado kale yara duwani waa jireen masaajidada laakiin saan hore u sheegay masaajido fara badani waxay hore u gaareen inay xiraan iyaga oo doonaya inay dadka ay tusaan inay dan ka leeyihiin caafimaadka dadka waddanka ku nool dhammaantood doonayana in hadhow dadka masalan cunsuriyiinta oo kale ah inaanay ka faa'iideysan fursad ah inay yidhaahdaan dadkan ajaanibta ee waddanka degan ama haddana muslimiinta ahi waxa weeye goobahoodii ay isugu imanayeen waa ay furan yihiin weli waxa weeye ayagana xanuunkan iyo viruskan dadka ku fidinaya dhexdooda. marka ayadoo taa laga taxadarayo ayaa masaajidadu horey arrintaa u gaareen. dawladdu markii ay tiraha la xirana way xireen. anigu fikrad ahaan run ahaantii diinta islaamka sidaynu garanayno waxaa ilaahay usoo dejiyey 5 arrimood ama 6 arrimood inay ilaaliso. waxaa ugu horeysa waa diinta, waxaa ku xigta waa nafta bini aadanka, waxaa ku xiga waxa weeye caqliga qofka bini aadanka, waxaa ku xiga waxa loo yaqaano cirdiga qofka bini aadanka ah iyo sharaftiisa, waxaa kaloo ku xiga iyo nasabkiisaba haddii mararka qaarkood la isku daro. tan kale ugu dambeysana waa maalka. marka intaa markaad eegtid haddana waxaad moodeysaa naftu inay ugu sii muhiimsan tahay maadaama diinta ilaalinteedu aanay macno yeelanayn qofkii ilaalinayay haddaanu noolayn. marka arrintan ku saabsan doodaha odhanaya masalan masaajidada ha noqdeen meelaha ugu dambeeya la xirayo meelaha kale furan iyo anigu run ahaantii haddii culimmadu ay maxaan ku idhaha og yihiin isu imaanshiyaha dadku inay keeni karayso inay dadku dhintaan ama xanuunku inuu bato oo faafo intaa haddii la xaqiiqsado oo dadka khubarada ah ee dhakhaatiirta iyo dadka scientiska ay inoo sheegaan iyo dadka dawladda ahi waxaan anigu tala ahaan odhan lahaa inaan dood laga dhigin maxaan ku idhahdaa ilaa meelaha kale la xiro mooyaane masaajidka yanaan xirin maadaama masaajidku uu yahay
meeshii dadku ay ku dayanayeen dadka wanaagsan mujtamacna ugu wanaagsani ay meesha isugu tagaan ay masaajidka ay tahay masaajidku dadka ha u noqdo meesha liidka ah marka liidka wuxuu ka noqonaya masaajidka la hogaaminayaa in masaajidadu waxa wanaagsan naftoo kale in la ilaaliyo hadday noqoto inay iyagu number 1 ka noqdaan haddii masaajidada la xiro meelaha kale ee imika furfuran ama dadku isugu tagaan in la xiro iyaduna way sahlanaanaysaa waxa la oranaya masaajidkiiba waa la xiray maxaa adiga ku furay marka laakiin haddii masaajidada yidhahdaan anagu xiri mayno kuwa kale oo la xiro mooyaane waxaanu arkaa doodaasi iyadoo la ogyahay in xanuunadu ay ku fidi karaan masaajidada dhibashada ay keensan karaysa marka halkaa isugu imanaya inaanay noqonayn maxaan ku idhahda mid ilaahay agtiisa marka la tago aan cudurdaar weyn aan noqonayn haddaynu ogahay in naftu ay meesha ku baxayso ama ay ku xanuunka lagu kala qaadi karayo masaajidadu dadku ha horgaleen insha allahu tacaala marka sheekh sidaad sheegtay iyadoo meel walba la xidhay saameyntan coroonuhu yeeshay de bishii rabadaan ee barakaysneed bay nagu soo socota masaajidadii iyo malcaamadihii iyo dacwadii la bixin jirayna waxa weeyaan waa xidhan tahay oo meel walba waa xidhan tahay bal ka warran dadkii maxaa u qorshaysay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جزاك الله خير مهندس maxaan ku idhahdaa yaasiin su-aal aada muhiima weeye masaajidada run ahaantii markii la xiray masaajidadii markii horeba aada iyo aada u isticmaali jiray taqniyada hadday noqoto social mediaha noocyadiisa kala duwan waxay markiiba sameeyeen inay u guuraan waxa loo yaqaano social mediaha inay uga faa'iidaystaan inay ardayda wax uga dhigaan tusaale ahaan oo kale masaajidka iyagan alfurqaan manchester waxaanu markiiba samaynay inaanu waxbarashadii caruurta ee ka socotay masaajidka 7 cashaba inaanu markiiba u wareejinay xagga internetka anagoo ka faa'iidaysanayna zoom barnaamijka loo yaqaano halkaasoo ardayda qur-aankoodii iyo tarbiyada islaamiyaba ay ku qaadanayaan guryahooda ayagoo jooga waalidkuna aada iyo aad bay arrintaa usoo dhaweeyeen markii dambena dadku aad bay uga qabsadeen imanka si fiican bay socotaa malaamadii tusaale ahaan oo kale sidoo kale masaajidka duruusihii wiiga ama usbuuclaha ahaa oo dhan alxamdulilah dib baanu markiiba aanu uga istaarnay online-ka halkaasoo duruus youtube-ka oo live aan usoo dayno sida oo kale maxaan ku idhahdaa duruus zoom iyadana lagu dhigo oo arday gaara ku xidhnaan jirtay marka taasi waa mid weeye sidoo kale waxyaabaha masaajidadu iminka qaar ay bilaabeen waxaa kamid ah online-ka oo kale in laga akriyo xataa khudbadii jimcaha oo imaamka iyo dhowr qof oo shaqaalaha masaajidka ah ay tukadaan dadkii guryaha joogan ay ka dhegeystaan halkaa ka faa'iidaystaan cilmiga iyo isxasuusinta laakiin guryahooda ay ku tukadaan salaada duhur iminka hadday noqoto arrinta ramadaanta run ahaantii waxaa la filayaa bisha masaajidadoo dhan intaanu ka warhayno iminka ingiriiska iyo xaggan westiga dhammaantiiba ilaa canada oo kale tusaale ahaan waxaa iminka loo wada diyaar garoobayaa ramadaantan inay masaajidadu xidhnaanayaan marka masaajid walba wuxuu ku talagelayaa in masaajidkii aanu furmi doonin sidii hore marka duruus oo kale in dadkii loo diyaariyo online-ka ay ka dhegeysan doonaan iminka tusaale ahaan oo kale masaajidkaygu xataa waxyaaba isku dayay waxaa kamid ah in afurada masaajidka waagi hore waa tii lagu wada afuri jiray marka afurka in masaajidka lagu diyaariyo dabadeedna dadka aan guryaha afura ku karsan karayn oo kale singleka ah inay masaajidka inay inta afurada in yar ka hor ay yimaadaan kadibna masaajidka laga siiyo afuradooda take away looga dhigo dadka waaweyn ee guryahan kasoo logeyn karayn ayaga laftigooda loo sameeyo waxa loo yaqaano delivery oo gurigaba loogu geeyo marka waxaan kula talin lahaa masaajidada inay arrimaha noocaas oo kale ah ay ku dadaalaan dadkii ay ka warhayaan insha allahu tacaala marka iminka sidaan waxyaabaan is leenahay waxa loo qabtay dadka arrimahaasa kamid ah masaajidaduna iminka masaajidka joogo oo kale waxaan isku daynaa inaanu xiriir aan la samayno dadka magaalada degan lala hadlo qofka caawimo u baahan laga caawiyo dadkuna aada iyo aad bay arrintaa ugu baahan yihiin duruusuhuna masaajidka maasha allah si fiican bay uga baxaan taasna waan kula talin lahay inay masaajidadu ay wada sameeyaan qaar badan iminka waan filaya inay bilaabeen masaajidada intaan hore u sameynna inay arrintaa iminkaba u diyaar garoobaan insha allahu tacaala waxaan laakiin ilaahay ka baryaynaa bal ramadaanta wixii ka horeeya in ilaahay arrinta naga dulqaado hawsha khafiifiyo si ay dadkii bal masaajidada quyar ugu soo noqdaan laakiin waxaa loo badinayaa inay sanadkan adkaanayso in masaajidadii dadku isugu yimaadaan taraawiixii lagu tukado laakiin dadka waxaan xasuusinaya waktigii nebiga de masaajidada taraawiixda laguma tukan jirin qofka guriga de si gaara u soomi jiray qof walba sidaynu samayno dabadeedna guryaha lagu afuri jiray kadibna taraawiixda waxaa lagu tukan jiray qof walba gurigiisu isaga tukan jiray waktigii nebigu noolaa waktiga abubakar uu noolaa waktiga cumar uu noolaa waktiga cumar uu noolaaba waxaa dhacday
waqtigiisa khilaafada oo 10 sano ahayd waqti kamid ah markuu arkay dadka muslimiinta ahaa oo salaada cisho kadib taraawiixda mid ama laba isugu xiranayo qof walba masaajidka qayb iskaga tukanayo ayuu waxa uu istusay in maxaan ku idhahdaa hal imaam la sameeyo dadkuna ay ku daba tukadaan marka fikradda taraawiixda la wada tukanayo qaabka la wada tukanayo waa waqtigii cumar ayay bilaabantay intii ka horreysay waxay ahayd qof walba inuu gurigiisa uu ku tukado marka insha allahu tacaala sanadkan waxaa la rajeynaynaa in arrintaas ay inoo suurta gasho haddii ay insha allahu tacaala haddii ilaahay qadaro inaan lagu soo noqon masaajidada sheekh maxamed cali mawlid oo khadka telefoonka iigu warramayay isaga oo jooga magaalada Manchester aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay